dadka xabashidu waxay weerarayaan xamka alle saylac bayna u marayaan waana aqoonsiga aan doonayno Somaliland aan doonaynana aqoonsigii Allah ayaynu haysanaa ta Ilaahay baa ka weyn wax walba dad islaamaan nahay ashahaadanaya xabashida iyo dadka oranka ah isku diin manhi waayo waxaan nahay dad islaama annaga dabatana ay dabka shidmeen oo ay dalaaleen sidii cadaab oo kale marka waxa weeyaan arinta waa ka soo horjeeda haddana haddaan reer Somaliland ahay oo afayeenkii darbitiirta ahay arinta dekada la siiyay Ethiopia waa ka soo horjeeda waxaan lagu soo horjeedaa waxa weeyaan dunia aakhir saban ayaa lagu jiraa 24 baa la galay dadku ma oga arrimo diineed markaan eego iyo ma ogtahay alla ka cabsiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka xabashidu waxay weerarayaan xaramka alle saylac bayna u marayaan waana taariikh soo jireen ah maadaama nahay afayeenkii Homes Children waxa weeyaan taariikhda historyga ah intaas soo sanadood soo jirtay ayay haddana doonayaan inay ku dhaqaaqaan konton sanadood hadday Kristaan laftigooga konton sano de waxa weeyaan ilaa qofku ma noolaanayo oo adduunka waa ka tagayay aakhir sabanka hadda waa waxa la arkay calaamado badan oo waaweyn oo buuraha bariga Afrika dabatana ay dabka shidmeen oo ay dalaaleen sidii cadaab oo kale marka waxa weeyaan arinta waa ka soo horjeeda haddana afayeenka darbitiirta ahay waxa weeyaan suuqa bariga Afrika ayaa la furay taas ina ganacsiga loo gala ayay ahayd laakiin sadekad in laga maalgashado oo Ethiopia ay ka maalgashato oo anagoo Somalilander ah waa ka soo horjeednaa haddana diinta islaamka ayaanu dad islaamaan nahay ashahaadanaya xabashida iyo dadka oranka ah isku diin manhi waayo waxaan nahay dad islaama annaga maadaama Soomaali nahay waxa weeyaan Soomaalinimada iyo Somalilanderka ayaa ka wanaagsan wax walba oo qiimo leh oo sharaf leh oo cisi leh oo karaamo leh oo dunida gacaladeeda dadka iga daawanayaan la wadaagaya arintaas waa qalad ina lagu kaco waxa weeyaan ina laga noqdaan rajeynaya insha Allah xaramka alle ka weerarayaan xabashidu wax wanaag inoo soo wadaan ma jirto oromadu wax wanaag inoo soo wadaan ma jiraan waxa weeyaan arintaasi waa arin aakhir saban waa arin ay xashka ka weerarayaan waxa weeyaan adduunyadana de ma ogtahay bariga Afrika dagaal ka furmeen iyo midowga Yurub oo Falastiin wada arkaysa sida ay maalin walba u gumaadayso dadka muslimiinta ah horta waxaan taariikh soo jireen bay ahayd maadaama oo xaramka Allah ay ka weerarayaan waxa weeyaan dadkan Ilaahay Quraankiisa iyo kitaabkiisa ku sheegay horta anu Quraanka maandhigan oo jis amma ayaan ka gaaray laakiin saqaariga si aragti badan ayaa ku matiga iga soo qori doona marka waxa weeyaan walaalkaygiyo xaramka ayay ka weerarayaan xabashidu wax nafoo inoo hayaan maanta ma jiraan dadka reer Somaliland ee dunida gacaladeeda ku nool iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa arintaasi waa qalad qof walbana damiirkiisa inuu siiyo maaha aqoonsiga aan doonayno Somaliland aan doonaynana aqoonsigii Allah ayaynu haysanaa ta Ilaahay baa ka weyn wax walba amni baynu haysanaa waxaynu haysanaa ciidan waxaynu haysanaa lacag waxaynu haysanaa hanti badan oo dhulka taala oo ganacsiyo kala duwan ah marka waxa weeyaan yaa lagu degdegin baan leeyahay